iyo VOA-na waxaa ka mid ah taliyihii guud ee booliiska qaybta gobolka Banaadir Sarreeye Guuto Farxaan Maxamuud Aadan oo loo yaqaan Farxaan Qaroole oo maanta qarax lagu dilay. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Waxaa maanta 3 September 2022 maalinimo Jimco ah ku shahiiday Sarreeye Guuto Farxaan Maxamuud Aadan taliyihii qaybta booliiska gobolka Banaadir qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed howlgal in dhawaanaada ka socday xuduudda gobolada Banaadir Shabeellaha Dhexe Shabeellaha Hoose. waxaa kaloo idin haynaa waraysi aanu la yeelanay taliyihii hore ee hay'adda nabad sugidda qaranka Yaasiin Cabdullaahi Faray oo ay Farxaan si dhow u soo wada shaqeeyeen. baarlamaanka waa inagii baaskareeyay Somali Heritage Week taasoo toddobaadkan soo socdana aynu u dabaaldegi doono 25 June ilaa 1 July koodeeda taasoo noqonaysa Somali Heritage Week. taasna waxay noqonaysaa inaynu ku faano aynu samayno reflections aynu eegno marka dadka successfulka ah ee communitygana ka tirsana maxaan kaga dayan karnaa maxaan ka faa'iidaysan karnaa. raalli ahaada dhegaystayaal waraysigaasi waa uu inoo soo socdaa. waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aanu ku falanqayn doono dagaalka ay iclaamisay dowladda Soomaaliya ee ka dhanka al-shabaab. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka waan idiin afriyo. dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shacabka Soomaaliyeed iyo ciidamada qalabka sidaba uga tacsiyay geeridii ku timid Allah u naxariistay taliyihii qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir Sarreeye Guuto Farxaan Maxamuud Aadan iyo askartii ka tirsanayd ciidanka xoogga dalka ee saaka lagu qarxiyay duleedka Muqdisho. qoraal lagu baahiyay warbaahinta dowladda ayuu madaxweynuhu ku sheegay in Generaal Farxaan iyo saraakiisha la geeriyootay ay naftooda u horeen sidii shacabka Soomaaliyeed ay nabad ugu noolaan lahaayeen. taliyaha ciidanka booliska gobolka Banaadir Allah u naxariistay Farxaan Qaroole ayaa waxa uu ku dhintay ama qaraxa lagula beegsaday deegaanka lagu magacaabo Laba Buundaale oo ah barta ugu dambaysa ee ciidanka marka laga soo baxo degmada Balcad oo loo socdo dhinaca beeraha isagoo oo ku istaagay miino dhulka loo geliyay. qaraxa ka hor ayuu Farxaan Qaroole ka degay gaarigiisa oo ahaa nooca aysan xabadu karin isagoo dhiirigelin ugu tagay ciidamada goobtaasi ku sugnaa. kooxda al-shabaab ayaa dhinaca kale goor dhoweyd sheegatay mas-uuliyadda qaraxa lagu dilay Farxaan Qaroole. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo gabagabeeyay booqasho 2 maalmood oo uu ku joogay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia. intuu Addis Ababa joogay Xasan Sheekh waxay dhowr jeer kulmeen ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed iyo saraakiisha sarsare ee ka tirsan dowladda Ethiopia. gabagabadii booqashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxaa labada dhinac ay soo saareen warmurtiyeed ku aadan waxyaabihii ay ka wada hadleen afgaradkana ay ka gaareen. warmurtiyeedkaasi ayaa lagu sheegay in labada mas-uul ay ku heshiiyeen xoojinta xiriirka labada wadan iyo waxwada qabsiga labada shacab ee Ethiopia iyo Soomaaliya iyada oo la dhowrayo madax banaanida dhuleed iyo midda qaran ee labada wadan ee dariska ah lagana fogaanayo faragelin dibadeed. waxaa lagu sheegay warmurtiyeedkaasi in labada dhinac ay isla garteen si xoojinta dagaalka ka dhanka al-shabaab oo labada wadan ay u arkaan cadow ay wada leeyihiin. waxaa warmurtiyeedkaasi lagu ammaanay guulaha ciidamada Soomaaliya ay ka gaareen dagaalka ay kula jiraan al-shabaab iyadoo dhinaca kalena Ethiopia ay ugu baaqday golaha ammaanka ee qaramada midoobay in la tixgeliyo codsiyo ay marar hore golahaasi u gudbisay Soomaaliya oo ay ku dalbanaysay in lagu qaado cunaqabataynta hubka ee saaran si ay u qalabaysato ciidankeeda argagixisadana ay uga adkaato. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ku dhawaaqay in 4 gobol oo Ukraine ay ku darsameen dalkiisa xilli ay ciidamadiisu jabkii ugu weynaa ee dagaal ay halkaasi kala kulmeen. Putin ayaa yiri dadka ku nool Luhansk, Donetsk, Kherson iyo weliba gobolka Zaporizhia in ay hadda kadib noqon doonaan muwaadiniin abid. hadalkan ayuu Putin ka sheegay xaflad maanta oo Jimcaha lagu qabtay aqalka Kremlin-ka. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ka jawaabay waxa ku darsashada Ruushka ee gobolada ka tirsan dalka Ukraine wuxuuna sheegay inuu dedejin doono codsi uu ku dalbanayo in ay ku biiraan isbahaysiga military ee NATO. aqalka cad ayaa isna cambaareeyay dhulboobka Ruushka. qoraal uu soo saaray ayuu madaxweyne Biden ku tilmaamay ku darsashada Ruushka mid sharci darro ah. Biden waxa uu sheegay in Ruushka uu ku xadgudbayo sharciyada caalamiga ah isagoo ku tumanaya sharciga qaramada midoobay kuna gardaroonaya bulsho nabad ku nool.
qarax ismiidaamin oo aad u xoogan ayaa burburiyey fasal iskuul oo ku yaala caasimadda afghanistan ee kabul aroortii saaka waxaana ku dhintay ugu yaraan 19 arday ah halka 27 kalena ay ku dhaawacmeen. goobjoogayaal iyo saraakiil boolis ayaa sheegay in qaraxa uu ka dhacay gudaha xarunta waxbarashada kaaj ee galbeedka magaalada dash abarji oo ay ku xoogan yihiin deegaan ahaan shiicada. khaalid sadraan afhayeenka booliiska kabul ayaa u xaqiijiyey VOA waxyeelada rayidka wuxuuna cambaareeyey falkaasi. afhayeenka ayaa sheegay in ciidanka ammaanka Daalibaan ay goobta gaareen islamarkaana ay baaritaan wadaan. ardayda la qarxiyey ayaa diyaarinaya imtixaanka gelitaanka jaamacadda oo matalaad ah marka qaraxa uu dhacayay. dad ka soo badbaaday qaraxan ayaa sheegay in ardaydu ay ahaayeen ilaa iyo 400 oo gabdho iyo wiilal isugu jira waxaana u dhaxeeyay dah sida ay amartay Daalibaan. qofka isqarxiyey ayaa dhinaca gabdhaha isku qarxiyey halkaasi oo ah halka ay dhimashada ugu badan ka dhacday. Washington habeen wanaagsan meel walba aad naga dhageysanaysaan. taliyaha ciidamada booliiska gobolka Banaadir Sareeye Guuta Farxaan Maxamuud Aadan oo loo yaqaan Farxaan Qaroole ayaa lagu dilay qarax ka dhacay agagaarka degmada Balcad oo 30 kiiloomitir dhanka waqooyi kaga beegan magaalada caasimadda ee Muqdisho sida VOA u xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan dowladda. allah u naxariistay taliya Farxaan Qaroole ayaa ku dhintay halka lagu magacaabo laba buundaale oo ah barta ugu dambaysa ciidanka marka laga baxo degmada Balcad loona socdo dhinaca beeraha isagoo ku istaagay meena dhulka loo geliyay. taliska booliska Soomaaliyeed iyo hay'adda nabad sugidda qaranka ayaa labaduba xaqiijiyay geerida Farxaan. maxamed colaad xasan ayaa haddaba qadka telefoonka ee Muqdisho kula xiriiray afhayeenka booliska ciidamada booliska Soomaaliya Sadiiq Doodishe. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. waxaa maanta 3 September 2022 maalinimo jimco ah ku shahiiday sarreeye guuto Farxaan Maxamuud Aadan taliyihii qaybta booliiska gobolka Banaadir qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed howlgal in dhawaalaada ka socday xuduudda gobolada Banaadir Shabeellaha Dhexe Shabeellaha Hoose kaas oo looga sifeynayay argagixisada ayaa taliyuhu maanta howlgalka ku shahiiday. marka waxaan idin xaqiijinaynaa in arrintaasi ay arrin tahay arrin dhacda rasmi ah tahay. waxaana weeye kula nafsan daa'iqatul mawt cid mawtka ka baxsanaysaa ma jirto. marka sarreeyuhu howlgalkaas ayuu maanta ku shahiiday. bal faahfaahin laga sii goobta saxda ah ee dilka taliyuhu ka dhacay. exactly walaal waaba kuu sheegay xuduudda deegaan dhaca isku xirka 3 gobol ee Shabeellaha Dhexe Shabeellaha Hoose iyo Banaadir oo in dhawaalaada ay ka socdo ugu badnaan ee Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose kasaarkooda ah oo howlgalka ayaantaanba looga sifeeyay argagixisada ayaa howlgalku ka socday. marka sidaaba u dhaceen faahfaahin intaa kasii dheerina ma jiraan isla adigu waqti calaqo arrintaasi dhacday. marka muhiimaddu waa inaan xaqiijino dhacdadaas inay dhacday. waa gartay adoo mahadsan. waa gartay marka taliyaha ma iska horimaad toosa ayuu ku dhintay mise qarax jidka loo dhigay ayuu ahaa? waa mahadsanta walaalow. howlgalku keliya kuma eka deegaankaas sida la socotaba howlgallo ayaa guud ahaan koonfurta bartamaha Soomaaliya ka socda. kuwa abaabul shacabku iyagu isabaabuleen iyo kuwa ciidamada dowladdu ay horkacayaan. marka muhiimaddu waxay tahay in la joogo dabargoyntii iyo ciribtirkii argagixisada. marka inta yaroo haraadiga ah ayaa laga sifeynayay meelaha muhiimka oo ah inta badanna dee isu xirka gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose waa meeshii argagixisadu ay isticmaali jirtay inay isaga kala gooshaan ay gurmadooda marsiisaan. marka degdeg aad muhiim u argagixisada u ahaa. halkaaba howlgallo saf ballaaran ay ka socdeen. howlgalladana dhammaan gobolada koonfurta iyo bartamaha ka socdaan. wax hadda maanta bilowdana maahana intii ayaanada ay soo socdeen. marka taakay wax iska horimaad ah oo meesha ka dhacay ma jirin. laakiin dagaalaha un cadowga dhagaa kamida iyo qadarta ilaahay baa kulmay. marka sarreeyuhu halkaasuu maanta ku geeriyooday. marka howlgalkii aad ka samayseen aaggaasi waxaan ogeyn inay ku tiila maxkamad ururka al-shabaab uu ku leeyahay deegaankaasi Basra oo xuduudda labada gobol u dhexaysa. goobihii aad howlgalka ka samayseen yaa ku sugan? wallaahi annagaa ku sugan. dee argagixisadu meel fadhi toosa ay deganaan karta maahane wax mobile ah oo guurguura oo hadda meel geedi ah oo gaari u saaran oo hadda meel ay la fadhiistaan ay argagixisada kuga howlgeli jireen. marka in xataa dhaqdhaqaaqa noocaasa lasoo ciribtiro u ahaa howlgalku. Basra waxay ku taallaa gobolka Shabeellaha Hoose iyo Shabeellaha Dhexe isisaarkooda deegaamada xariiriya ku taallaa. laakiin wax argagixiso ah oo soonka hadda maanta ka dhow ma jirin. laakiin qadartii unbaa iyo waktiga ayaa intaa ku ekaa.
kaasi waxa uu ahaa afhayeenka ciidanka booliska soomaaliyeed Sadiiq Doodisho oo u warramaya waryaheena Maxamed Colaad Xasan. Dhinaca kalena Allah u naxariistay Farxaan Qaroole ayaa 2 jeer oo hore ka badbaaday qaraxyo lala eegtay. Bishii Juulaay ee sanadkii 2021 ayuu ka badbaaday weerar ismiidaamin ah oo lala beegsado kolonyo gaadiida oo uu la socday meel ku dhow isgoyska Banaadir ee magaalada Muqdisho. 5 qof ayaa ku dhintay weerarkaasi, 9 kalena way ku dhaawacmeen. Dadka yaqaana ayaa ku tilmaamay inuu ahaa nin dhalinyaro ah oo furfuran oo yaqaana xeeladaha maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Haddaba qofka uu ahaa Farxaan iyo waxa uu ka yaqaana ayaa waxaan wax ka weydiiyey taliyihii hore waa kusimaha taliyihii hore hay'adda nabad sugidda qaranka xildhibaan Yaasiin Cabdullaahi Farey. أولا جناب فرحان الله ونحرسته صبري من الله كسي qoyska iyo qaraabada iyo guud ahaan qaranka Soomaaliyeed gaar ahaan ciidamada qalabka sida ciidamada amniga qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir waxaan leeyahay Ilaahay ha u naxariisto annagana sabri iyo iman Allah naga siiyo inta ka degana Farxaan aqoon fiican u lahaa wuxuu ahaa sargaal taayara waqtigiisa ugu badan u soo adeegay qaranka gaar ahaan qaybta howlgallada iyo amniga gobolka Banaadir iyo la dagaalanka kooxahan xadgudubka ah janaab Farxaan wuxuu ka soo shaqeeyay sida la wada ogyahay hay'adaha amniga muddo fara badan qof ahaan wuxuu ahaa anigu shaki badan kama qabin in argagixisana cadow ay u bareeri karaan janaab Farxaan balse waqtiga ayaa u bareeray waxaan leeyahay Ilaahay ha u naxariisto sabri iyo imaan Allah naga wada siiyo gaashiisa Ilaahay nama sameeyo qof sida uu ahaa janaab Farxaan haddii aad sawir ka bixiso marka tiisa shaqada laga soo tago shakhsiyan aqoon dhowna waa isku lahaydeen qof sidee aad ku sifaan lahayd nin dhalinyaro oo wuxuu ahay furfuran oo aniga waxaan ahay saaxiib shaqaan ahayn waxaan kasoo wada shaqeynay hay'adaha amniga meel hoosaan iskala nimiday haddana wuxuu ahaa taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir wuxuu ahaa nin dhalinyaro oo hogaamiye ah oo bulshadana ama mujtamaca si fiican ugu dhex jiray jeclayna mar walba inuu ka shaqeeyo nabadda iyo horumarka dadka Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada gobolka Banaadir nin wuxuu ahaa dadka la socodkiisa ama isheegay dadka u nugul oo dhalinyaro ah marka laga reebo dadku dhaliilaha la jeedinayo waxaa lagu saleeyaa nacayb qof iyo jacayl qof laakiin nin wuxuu ahaa mustaqbal ifaya lahaa oo aad dareemi karto da' noocaasa asigoo da'diisa intaas tahay waqtiga uu soo shaqeeyey iyo waqtiga hadda uu ku jiray iyo shaqadii uu hadda hayay ayaa laga dareemi karaa qofka uu ahaa janaab Farxaan marka waxaan leeyahay waqtigiisii ayaa maanta dhow ku ekaa Ilaahay ha u naxariisto samri iyo imaan Allah naga wada siiyo maxaa qasba in taliyayaasha ciidamada ama mas'uuliyiinta ugu sarreysa ciidamada iyagu ay furinta hore dagaalka ay galaan miyaanay jirin qaab kale oo ay taliyayaashu dagaalka ku hogaamin karaan ayagoo aan khatar weyna qaadan niyadda ciidankana ilaaliya ma jirtaa qaab kale oo ciidanku u dagaalgeli karo waa mahadsantahay way jirtaa balse waa dareemi kartaa duruufaha dalkeena ku xeeran hadda operationada marka la qaadayo waxaa loo baahan yahay wax badan laga fikiro in ciidanka laga fikiro in shacabka laga fikiro taasoo dhan marka xilliga lagu jira hadda awgeed ma saamaxayso inaad ciidan iyo saraakiil iyo isku leexiso aad howlgal u dirto waana loo diraa oo inta badan saraakiishu iyo ciidamadu iyagaa howlgala madaxduna lama socdaan laakiin tanoo kale way ka duwan tahay waayo mid u baahan waxaa waaye in ciidanka la dhiirigeliyo ciidanka lala socdo hadda lama kala naf weyna ciidanka iyo madaxdu inay isla socdaan ay guusha ku imaan kartaa maana inaad ciidan howlgal u dirto oo aad ka harto wax micno ay samaynaysaa ma jirto marka waktiga ayaa saamaxayo maana mar waliba madaxda lama socoto howlgallada noocaana dhinaca kale dilka jenaraal Farxaan waxa uu imaanayaa xilli dagaal ay ka socdeen qaybo ka mid ah dalka dawladuna ay dagaal ku baaqday howlgalkaasi saameyn intee leeg ayuu dilkiisa ku yeelanayaa janaab Farxaan howlgalka hadda socdo waa dareemi kartaa dalkoo dhan ayaa hadda xaalad dagaal galay isbedelka dalka ka dhacay oo hoggaanka u yahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ku dhawaaqay in dalka dagaal la geliyo lagama diriro kooxaha argixisada ah sidaa la socoto dagaalku wuxuu ka qarxay gobolada galgaduud iyo hiiraan waxaana operation fiican oo horumar fiican laga gaaray oo ka dhacay gobolka hiiraan waxaa dareemaya in oo dadkii
dagaalka dawladdu ay iclaamisay iyo isbedelka iyo doorashada dalka ka dhacday iyo in nimankii cadowga ahaa ay dadkii inay dhibaateeyaan usoo jeesteen oo iyagu dadka isku dareen dadkan ay ku kaceen waxaan isleeyahay waa fursad qaaliya, waa fursad dahabiya. dagaalna sidiisaba waa lagu dhimanaa, waa lagu dhaawacmaa. marka waxaan leeyahay inta dhimata allah u naxariisto ay ugu horeeyaan nabadoonkii gobolka hiiraan ee isagoo dagaalamayo shalay ku dhintay, iyo jenaraal farxaan maxamuud aadan oo maanta isagoo ka dagaalamaya meel ka baxsan magaalada caasimadda ee gobolka banaadir oo dagaal kula jiro kooxaha argixisada ah maanta ku dhintay. waxaan isleeyahay dagaal waa lagu dhimanaa, waa lagu dhaawacmaa. haddii dhimasho laga baqayo micnaheeda in dagaal la galaa sax maaha. waxaan isleeyahay marka dagaalkaanu waa fursad dadka soomaaliyeed ay ka faa'iidi karaan, waa fursad dawladda ay ka faa'iidi karto, waana ka faa'iidaya ilahay idinkiis. dadka iyo cadowgana waa isku kaceen. in cadowga dalka laga xureeyana waa markii ugu horeysay ee fursaddan la helo. haddaan laga faa'iidaysana way adkaa doontaa in oo waktigaan oo kale la helo. kusimaha agaasimihii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka yaasiin cabdulaahi farey oo u waramayay v o a. halkaad nagala socotaana waa v o a washington. markana kusoo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. waxaa magaalada muqdisho noogu soo diyaariyey nalana socodsiinaya wariyaheena cabdiqaadir maxamed cabdulle. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa iclaamisay dagaal ka dhan al-shabaab, waxaana hadda guluf dagaaleed uu ka bilowday deegaanada qaarkood, iyadoo dadka deegaanka iyo ciidamada dowladdu dagaal xooggan ay kula gelayaan al-shabaab qaybo ka mida gobolka hiiraan iyo galgaduud. haddaba dagaalkan al-shabaab hadda lagu qaaday, al-shabaabna dhowaan uu ka hadlay afhayeenkooda muxuu ka dhigan yahay, sidee loogu guulaysan karaa dagaalka, maxaysata qorshaha dowladda? barnaamijka ayaan ku eegi doonaa hadduu rabbi idmo, oo aan ku jeeqi doonaa toddobaadkan. waxaana barnaamijka nagala qaybgelaya xildhibaan cabdirasaaq xusul oo ka mid a xildhibaanada golaha shacabka soomaaliya, kana mid a dadka deegaanada uu ka soo jeeda hadday gacanta ku al-shabaab, islamarkaana xoogogaal si dhow arrintan ula socda. barnaamijka waxaa kaloo nagala qaybgeli doona wasiirkii hore ee batroolka soomaaliya, islamarkaana ka soo shaqeeya arrimaha amniga, gaar ahaanna arrinta hubka dhigista iyo dhaqan-celinta al-shabaab. waqti ka mid a wasaaradda amniga maxamed mukhtaar ibraahim ayaa barnaamijka marti noogu ah. sidoo kale barnaamijka waxaa nagala qaybgelaya ku-xigeenkii hore hay-adda sirdoonka soomaaliya cabdisalaam guuleed. dhammaantiin aad baad u mahadsantiin kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. cabdirasaaq aan ku bilaabo xildhibaanka, xaggey marayaan marka la fiiriyo abaabulka dagaala socda? bismillahi raxmaan raxiim. marka hore idaacadda v o a baan mahadcelinaya fursaddan qaaliga ayna siisay. sidoo kale waxaan rabaa inaan salaamo ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan. sidaas lamid ah waxaan rabaa inaan marka hore ka tacsiyeeyo dadkii lagu laayay gobolka hiiraan oo ugu horeeya nabadoon cilmi, cadowga argagixisada ah ay ku baabi'iyeen isaga iyo shuhadadii kalete ee meeshaas kula shahiiday oo lagu gardarooday. marka waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed guud ahaan iyo reer hiiraan gaar ahaan sabar iyo iimaan allah naga siiyo. runtii markaan gudaha u galo mawduuca, nimanka la yidhaahdo al-shabaab ee argagixisada ah ee haysta deegaano badan oo soomaaliyeed, dagaalka dowladdu kuma qaadin, dadka deegaankuna kuma qaadin, iyagaa soo qaaday oo la wareegay deegaano dad afriye ah oo soomaaliyeed ay degan yihiin, qaarkood ay dul fadhiyaan muddo ka badan 13 sano. runtiina gulufkaas markay iyagu bilaabeen, dadka gumaadeen, hantidooda qaateen, zaka aan dhammaanayna aruuriyaan, bulshadii tacadiyadii dhibaatadii ayay ka kacdoontay. dowladda soomaaliyana iyadoo difaacaysa dadkeeda ayay bulshadaas kacdoontay, garab iyo gaashaan u noqotay. marka dagaaladaasi waxa ay ka dhignaan doonaan ama ay ka dhigan yihiin in cadowgaas argagixisada ah oo maanta jaanis loogu haysto bulshadii soomaaliyeed oo wada aragtay waxa ay wadaan in aysan diin shuqul ku lahayn, in dadkii iyo dowladdiiba ay iska dulqaadaan heeryadooda. wasiir hore maxamed mukhtaar, markaad fiirisaan dagaalka sidoo ku bilowday, markaad fiirisaan dagaalaa bilowday, dowladdu way sheegtay laakiin dabaqaad keena in dagaalso, marka sidoo ku bilowday dagaalkan? bismillahi raxmaan raxiim. tacsida nabadoonka iyo dadka dhammaan ku dhibaatoobay ama ku shahiiday waxaan la wadaagaa xildhibaanka.
runtii ma filayo inuu yahay dagaal hadda bilowday. dagaalka shabaab 2007 ayuu soo bilowday. labada markaad fiiriso xukuumaddii xilligaas joortay waa markii ugu horeysay ee 2007 sharci la dagaalanka argagixisada la keenay baarlamaanka. sidoo kale waa marka uu shabaab inta gooni ugu baxay maxaakiimtii uu gooni u istaagay uu bilaabay gumaadka dadka Soomaalida ahaa. marka horta muddadaas ayuu soo bilowday ilaa ay wuu socday, laakiin qalqal wuxuu ku soo galay markii 2017 bishii September la soo gaaray. intii ka horeysay dadka Soomaalidu way u cadaayeen cidda al-shabaab ah, laakiin marka la soo gaaray September 2017 ayaa xukuumaddii xilligaa joogtay ayaa waxay u iclaamisay ONLF inay tahay argagixiso. taa marka waxay keentay in la kala garan waayo shabaabkii iyo dad mujaahidiin ah oo xaqooda u diriraya. tii marka waxay keentay inuu hakad galo la dagaalankii al-shabaab. marka uu madaxweyne xasan sheekh hadda yimid wuxuu dadka Soomaaliyeed u cadeeyay shabaab kaliya inay yihiin cadowga argagixisada ah ee buudan in lala dagaalo. taa ayaa horta qayb waxay ka ahayd dhiirigelinta inay dadka xaqoodii ay raadsadaan, iska kiciyaan culayska dul saaran. sidoo kale shabaab asaga laftigiisa wuxuu dareemay ismahadin ah in uu xukunka uu maadaama dhowr sano aan lala dagaalin culays la saaran, in uu ciqaabtii iyo dadkii culayska ku hayay inuu sii ballaariyo. taa ayaa keentay laftigeeda ka jawaabid ay dadka ka jawaabayaan. marka hadda waxaan rajaynaynaa haddii la yidhahdo in dagaalada hadda bilowday ay isu bedeli doonaan qaab rasmi ah, la heli doono shuruuc loo baahan yahay, lagana guuleysan doono. absalan isla su-aashan sidoo ku bilow dagaalka markaa fiirisaan khibradaada amniga? horta tacsida waxaan la wadaagayaa iyo maaragtay ducada aan u ducaynayno dadka dagaal ku jira iyo dadka dhaawacmay iyo shuhaadadii dagaalka maaragtay wixii intii ku dhimatay maanta intii ka horeysay oo ugu horeeyo maaragtay suldaankii geesiga ahay oon isleeyahay Soomaali taariikhdeeda meel weyn oo ka geli doona, dhaqanka Soomaaliyeed inay ku daysadaan ay tahay. aan isleeyahay in guutooyinka ciidanka Soomaaliya iyo meelo badan oo kamid ah in loogu magac daro, laana waxa weeyaan waa inaan u tacsiyeyno ma ahane waa inaan u hambalyeeyno, sababtoo ah waxa weeye waa mujaahid Soomaalinimadiisa iyo geesinimadiisa muujiyay. suldaan cilmi xagar guure Allah yarxamo. haddaad fiiriso Cabdulqaadirow 17 sano ayay hogaamiye kooxda wadanka haysteen markii maxaakiimtu kacayeen. dadka Soomaaliyeed way dhibi jireen, aad ay u rafaadi jireen. maalimay istaageen dadku waxay dhaheen maanta intaan nalma dhaafayso. shabaab hadda waxaa muuqata 15 sano muddo gaaraysa ayay dadka dhibaato ku hayeen. dadka Soomaalida marka dulqaadkoodu meel uu ku eg yahay, haddii mar istaagaan inta badan hogaamiye kooxeedkii waad ogeedo maxaakiimtii ayaa u dambaysay. shabaabna waxaan isleeyahay kacdoonkan shacabka waa u dambay doonta. marka waxaa muuqata dulqaadkii inuu shacabka ka dhammaaday, kalsoonina inay ka heleen baaqi madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ahay ninkii ugu dambeeyey ee dagaal dhaba la gala al-shabaab ilaa baraawo gaarsiiya. madaxweyne sheekh shariif oo ninka xamarka xoreeyey, laakiin ilaa baraawo la gaarsiiya xasan sheekh maxamuud sabab u ahay. maadaama marka si cod dheer leh oo kalsooniyo ka muuqato uu dagaalkan ugu baaqay, dadkuna dulqaadkoodii dhammaaday, timekii ay dagaalami jireen la gaaray oo maaragtay laska kici lahaa wax kor fadhiya. waxaan isleeyahay dagaalkani waqti sax uu ku soo aaday, laakiin dareen haddana waxaa igu jiraa inuu kala horeyn jirto diyaar garowga shacabka iyo midka dowladda. alabsaaq markaad fiiriso al-shabaab 13 sano ay deegaana haysteen, way joogeen, canshuuray qaadayeen, hadda maxaa soo kordhay? runtii muddadaas oo 13 sano ah runtaa waaye ay deegaanadaas haysteen, laakiin mar walba waxaa jiray dad Soomaaliyeed oo kacdoonka mid lamid ah sameeya. tusaale ahaan gobolka Galgudud barigiisa degmooyinka Galcad iyo Ceeldheer 13 sano ka hor sanadii 2009 iyo aakhirkeedii iyo horaantii 2010 oo lagula dagaalamay. waxaa kula dagaalamay bulshada deegaanka. 9 bilood ayaa al-shabaab hortaagnayeen shacabka deegaanadaas degan, iyagoo madaxtooyada kaabiga ku haya oo weerar ku haya. hase ahaatee mar walba waxaa dhacaysay in dadka kacdooma deriskooduna aysan kaalmaynin, dowladuna aysan garab u noqonin, sidaana iyaga markii dambe awoodooda lagu wiiqo oo cadowga argagixisada ah isaga soo gurmado gobolada dalka oo dhan. hadda maxaa isbedelay? yaa damaanad qaadaya inay dadku gurmad iyo taageero helayaan? hadda wax badanaa isbedelay. waxyaabahaas badan oo isbedelay waxaan ka xusi karaa in bulshadii Soomaaliyeed maanta ay dareemeen nimankan in wax ay wadaan aysan diin ahayn. xilligaas waa dareemeen, laakiin gurmadka intuu ku imaana xilligaasi taageero badan ay lahaayeen runtii, oo maanta midkay leeyihiin ka badan. laakiin taageeradoodii waa dhammaaday, wixii ay sheeganayeen beentoodii waa laga daba tegay. sidoo kale
dhibaatadoodiyaa dadka saamaysay. waagaa dhaqaalo ma qaadi jirin, ceelal ma gubi jirin, laakiin maanta ujeedkoodii rasmiga ahaa ayay la soo baxeen. waxaa kaleetoo meesha ka baxay waxyaabihii raqiista ahaa oo ay shacabka soomaaliyeed ku beer la xabsan jireen, oo ahaa ciidamada soo duulay oo soo xadgudbay aan la dagaalayna oo ajaanib ah. maanta laakiin haddii kuwaa ku marsimoonan marsimadii meesha way ka baxday. waxaa la dagaalamaya waa dad beeraley ah, xoololey ah, ganacsato ah oo dukaamankoodii deegaanadaas ku yaaliin, dhibaato ay gaarsiiyeen, gartay in aysan dadkaan ahayn. marka maanta mashruuc kaleete oo ay ka hadli karaan oo ay dhihi karaan cadow soo duulo shisheeyaa jooga dalkoodna weeraraya, meesha waa ka baxday. waxayna maanta layihiin tiim baro ay isticmaalaan oo ay yiraahdaan hebel waa gaal oo waddan shisheeyo meeshaasuu ka yimid. dadkii deegaanka iyo dowladdii soomaaliyeed oo dadku igmaday inay dalkan hogaamiso ayaa la dagaalaya maanta. su-aal balana ku weydiy dhawaan waxaad ka hadashay maqaawisley halgan ka socdo sibaad u durtoo tiri in laga marka maxaad u durta dhawaan maqaawisleyda? waxay soomaalidu tiraahdaa hadal waa margoo kale, hadba meesha loo jiid ma aada. horta hadalkaasi wuxuu ahaa dood socotay 4 saacadood oo laga soo qaatay kilib yar oo geel zakamale ah ama faweynun lilmusalliina ah. marka isagoo faahfaahsanna dib ayaan ka keenay. ujeedkeenu wuxuu ahaa maadaama dad badan oo kacdoomay oo deegaankooda ka difaacanaya cadowga, inta lagu fiirsaday awoodooda la wiiqay, in kuwan awoodooda aan la wiiqin oo dhibaatadaas oo kale aysan ka imaan. number 1. number 2, intaa iyagu guulaystaan haddana aysan iyagu dhexdooda xabad isku ridin ama aysan dowladda laftirkeeda ku ridin sidii horu dhacdoo kaleet. marka waxaan na bogaadinay oon soo dhaweynay in dadka dowladdu u tagto kacdoonsan, jaaniskaasna dowladdu ay ka faa'iideyso. arrintii iida ahaydna maadaama anagu aan nahay kuwii shacabka matalayay, dowladdii baaqaas asigaah waa ka jawaabtay. maantana waxaa arkaysaa taliyihii xoogga dalka iyo wasiirkii gaashaandhigga oo bulshadii la jooga oo furuntii kula jira oo cadowgii la dagaalaya. maxamed mukhtaar 13 sano kadib waxa ugu weyn oo hadda al-shabaab ka qaybqaybta? runtii al-shabaab dhexdooda markaad fiiriso mar walba laba fikrad ayaa ay isku hayn jireen. qole aaminsan in ay soomaaliya xukuumadda ay ka ritaan oo xukunka ay qabsadaan, fikrad noocaasa gudahooda way ka jirtay. iyo qole aaminsaneyd in expansion la sameeyo oo macnaha regionka oo dhan loo gudbo oo dhulka macnaha dhulka oo dhan macnaha wadamada kale hataa la weeraro oo macnaha argixisada la geeyo. fikrad noocaasa mar walba way jirtay. marka waxaad u malaysaa in waxa dhacay ay tahay isku day labadii macnaha isballaariskii qayb ka mid ah inay tahay. sababtoo ah marka ay weerarada dhacayeen Ethiopia iyo marka ay gumaadka ay sameynayeen labada xilli waa isku wada aadan tahay. marka taa ayaan filayaa inay tahay in ay tahay khilaaf ayaga laftigooda dhexdooda ku jiro ah macnaha ma waxaan culays ka saarnaa inaan Ethiopia u gudubno, Kenya u gudubno, expansionkii aan aadno oo aan fidno, iyo maya macnaha halkan gudaha aan laftigeeda aan isku ballaarino oo aan deegaanadii aan fidino oo aan wada qabsano. macnaha fikrad noocaas ayaan dareemayaa inay ku jirto. laakiin waxa muhiimka ah oo hadda meesha yaalla waxay tahay ka jawaabidda ay dowladda ka jawaabayso, ka jawaabidda ay dadka deegaanka ay ka jawaabayaan, iyo ayadoo si wada siman ay qabiilada isu agaasimayaan. laakiin waa nasiib daro in macnaha inay gaarto inay qabiilada ayaga is agaasimaan oo ay iska celiyaan. sababta waxay ahayd maadaama ay muwaadiniin yihiin inay ciidamada iyo dowladda ay ilaaliso oo aanba loo baahanba inay ayaga ishubeeyaan. laakiin dee duruufta ayaa hadda taagan, meeshaas taagan. marka hadda marka ay taagan tahay waxay u baahan tahay in dabaqabasho la sameeyo, in la garab istaago, in waxyaabaha ka dhiman loo dhammaystiro. gaar ahaan waxyaabaha ay dowladda iyo gaar ahaan baarlamaanka looga fadhiya waxay tahay dib u habeyntii shuruuciyada qaarkood iyo shuruuciyada dhammaystirkooda sida ugu dhaqsaha badan in loo sameeyo. sababtoo ah waxa aan shabaab kaga duwanaa waxay tahay sharciga ayay tahay. haddii laakiin aan sharci la-aan la shaqeeyo macnaha dee ma muuqanayso, dowladnimo ma muuqanayso. marka shuruucda ka mid ah waxaa ka mid ah waxaa nasiib daraa 2000 sida daati sheegay 2007 ayay ahayd markii ugu horreysay sharciga la dagaalanka argixisada la keeno. 15 sano kadib maanta aan taagana lama sameyn. marka taa de wax la aqbali kara maaha. taa marka waxay u saamaxleed hay-adaha dowladda inay si sharci ah wax kaga qabtaan dadka dhaqaalaha siinaya, dadka xiriirka la sameynaya, dadka macluumaadka u gudbinaya, si sharci ah ay wax kaga qabtaan. sidoo kale maana booliska Soomaaliyeed oo lagama maarmaan u ah la dagaalanka ama sugidda amniga
isaga hataa laftigiisii maadaama federaal aan qaadanay weli lama sameyn shuruucdii federaalka oo booliska uu ku shaqayn lahaa oo sidee u wada shaqaynaya booliska hirshabelle iyo galmudug iyo sidee u wada shaqaynaya laftigeeda ma caddo. sidoo kale hay-adda nisa shuruucdeed lagu dhisi lahaa. marka dowladnimada waxay ku jirtaa iyo xeerka ciqaabta Soomaaliyeed asna laftigiisa u baahan dib u eegis lagu sameeyo. marka dowladda macnaha waa inay garab istaagto dadka hadda militarily, laakiin xukuumadda gaar ahaan sharci dejinta labadoodu waa inay dedejiyaan inay sameeyaan sharciga, sababtoo shabaab waxaan kaga adkaan karnaa sharciga iyo dowladnimo. dhowr jeeroo hore dadka deegaanku way dagaalameen, xildhibaanku uu sheegay, laakiin meel dhaqay dabcan ay ku guuldaraysteen. al-shabaabana dib u hanta deegaanadoodii. hadda maxaa laga baran doonaa? horta wax badan baa iska bedelay wixii socon jiray, dagaaladii socon jiray. waxaan u malaynayaa xildhibaanku soo sheegay guriceel iyo matabaan magaca ahlu sunna lagu dagaal 2008 aan xasuustaa, dagaal ba-an lala galay. laakiin taas dowladda Soomaaliya way ka fogeedo, hadda gacan weyn kama aysan sii karin. magac kalena way ku dagaalamayeen dadku. maanta waxaad u malaysaa kacdoon ummadda Soomaaliyeed gaalqaad iyo qaaldheer baa lagu dagaalamay. ayaa lagu dagaalamay dhulkaas oo dhan, wabxo, warxoolo, ceel dheer, taas yani dhulka lagu wada dagaalamay ahayd. maanta waxaa yaala way ka bedelayeen wixii hore. shabaab wixii laga aaminsanay waxaan ahayn laga aaminsan yahay, waxay laga filayay waxaan ahayn la yimideen. culays iyo cadaadis iyo cadaabi ummadda Soomaaliya ka malaysanayeen la yimideen. sababtaasna waxaa isleeyahay Soomaalidu maanta way u dhan tahay inay iska celiso. laba arrimood oo kale oo muhiim ah jirta. al-shabaab 2013 iyo 2012 markii dagaalka dhaba lala galay magaalada Baraawe la gaarsiiyey, waana markii godana uu qoorta ka jaray saaxiibadiis. shabaab markastoo culays la saaro waxaa ku yimaada inay iscaasiyaan dhexdooda, isla diriraan, degtana dhiiga isu wada daraan. waxaan rajaynayaa bareesharkii culayska hadda maanta shabaab saaran inuu horta kaas ka lifi doono, waana imaan doontaa inay shabaab dhexdooda isdagaalamaan. tan labaad waxay tahay oo muhiimka, wadanka abaara badanaa ka jira maanta. haddii qabiilada qaarkood ay kacaan ay kici waayeen oo ku fiirsadaan qabiilka dagaalka haya ee iska xoreeyey, waa inay ogaadaan horumarka dowladnimada iyo horumarka maaragtay developmentiga iyo humanitarianka meesha la gey doono waa meesha shabaab laga xoreeyey. ee meelaha shabaab haystaan lama geli doono. marka ayagoo dantooda ka fekeraya, ayagoo Soomaali u fekeraya, ayagoo cirdigooda iyo gabdhahooda iyo wiilashooda iyo sekada laga qasbay u fekeraya, waa inay qabiiladu istaagaan. ta maanta socota waxaan isleeyahay mid shabaab soo celinaysa maaha. laakiin dadka bulshada Soomaaliyeed wixii laga raba way la timid. waxa maqan waxaan isleeyahay waa roolkii dowladda oo aad u yar. hadda ka daba dhimo ha ka harin baan u jeednaa, ciidankii danab iyo ciidankii guutooyinka deegaankaas joogan u jeednaa. laakiin mobilization ama yani magnitude-kii ama nafuudkii dowladnimo ilaa hadda ma aragno. madaxweynihi waxaan u jeednaa safaro isaga jiraa, wasiiradii qaarkood kuwa ugu muhiimsan waxa laga wadanka inay ka maqan yihiin. yani marka waxaan isleeyahay war haddii dadkan is abaabulay hadday naaf baxaan oo shabaab ay meelo uga adkaadaan, dowladdu ciidanka daxalaystay ee 5 sano, ciidankii Soomaaliya gawaaridooda waa daxalaysteen 5 sano, lama isticmaaleen. amisom waa daxalaysatay. daxasha in dib looga jafo waqti qaadanaysa. marka ha laga faa'iideysto fursadan, waana guushii al-shabaab looga adkaa lahayn qabaano. xildhibaan marka laga yimaado abaabulka deegaanka oo xildhibaanada iyo siyaasiyiintu wadaan, dowladdu maxay la wadaag? runtii dowladdu dadaal badan ay ku jirtaa. iyadoo curdana oo cusub oo hadda doorasho ka soo baxday ayaa cadowgu weerar ku soo qaaday iyada iyo shacabkeedaba. taana waxay keentay in madaxweynuhu uu iclaamiyo dagaalka dhan ah argagixisadaas oo lagu difaacayo ummadda. sidaa darteed marka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo dhammaan dowladda qeybaheeda kala duwan waxaa la istusiyey in loo wada istaago arrintaa, layskana difaaco cadowgaas, shacabkana garab. waan aragnaa, laakiin dowladdu maxay garab wada laga hayaa? dadku way sabaabuleen, howl baad wadeen, xildhibaanaadtiin, laakiin xukuumadda iyo madaxweynihii xafiisyada kale waqti laabaa ma jiraan. dowladdu sidaad og tahay ka wariye ahaan markii ugu horreysa hadda waxaa dhacday ciidan iyo gaadiid ka baxay xamar in ay jiiraan dhul badan oo al-shabaab ku haysto, oo ay jowhar mareen, oo mahadaay ka dhaceen, oo fiidow mareen, jalalaqsi mareen, buulo burda galeen, kasii baxeen oo ka gudbeen oo ilaa matabaan dhuusmareeb ay tageen, oo qaarkoodna ay hiiraan ka dagaalamayaan maanta, qaarkoodna ay ka dagaalamayaan galmudug. taa waxaa keenta marka arrintii ida ahayd iyo go-aankii dowladda. tallaabaha ay dowladdu qaatana waa cadyihiin oo maanta wasiirkeeni gaashaandhigga iyo taliya xoogga meeshay ku sugan yihiin iyo ciidamadii kala duwanaa ee xoogga dalka waa la ogyahay. marka dowladdu dagaalkan waa lagu soo qaaday, waana lagu qasbay, iyaduna si mug iyo miisaan leh ayay hadda ugu jirtaa.
waxaana sii adkeynayna ka xildhibaan ahaan in kacdoonkaas bulsho oo muddo dheer la sugayo in bulshadu nimankan cadowga ah ay arkaan maanta soo ifbaxay in laga faa'iideeyo oo arrintaa aysan ceermaanin. taasna waa ka rajeynayna dowladda insha allah. maxamed mukhtaar, wasaaradda amniga ka soo shaqeysa gaar ahaan dhaqan celinta iyo hubka dhigista, markaad fiirsa al-shabaab waa Soomaali, dagaalku meel buu ku dambeyn doonaa. maxaa loo baahan yahay qorshaha mustaqbalka fog al-shabaab maxaa laga yeela haddii xitaa dagaalka loogu guuleysto oo laga soo qaado dadaalka dowladda? waxaan rabaa tii hore inaan ku darsado waxa arrinta ahayd doorka dowladda. waxa ugu muhiimsana uu madaxweynaha qaado waxay tahay inuu u qeexa dadka Soomaaliyeed shabaab iyo waxa ay yihiin iyo cadownimadooda, oo mowqifka dowladda uu ka cadeeyo. waa midda koowaad. midda labaad, ciidamada waxaa loo isticmaali jiray siyaasad, macnaha saan la soconna ama ha noqdaan darm ama kuwo kale ha noqdaan, waxaa loo isticmaali jiray siyaasad. marka ayagana waxaa laga saaray inaan siyaasad loo isticmaalin ee loo isticmaalo hawshii ayaga loo igmaday oo ahayd difaaca dalka inay ka qayb qaataan. iyo sidoo kale waxaa la soo celiyey xiriirkii dowladda Mareykanka iyo aan la lahayn iyo dowladda Turkiga oo ay si kaga qayb qaataan la dagaalanka argagixisada. waa tallaabooyinka ugu muhiimsan. sidoo kale isku xirka ay sameynayso iyo ciidamada dagaalka ka qayb qaadanaya, iyo midda afraad midda kale oo jirto ah saxaafadda laftigeeda. maana haddii aad fiirisay idaacadaha qaranka door fiican ay ka qaadanayaan dagaaladan. soo marka waxaas oo dhan waa dadaal ay dowladda ay sameynayso. haddii aan usoo laabto jawaabtaada, waa runtaa macnaha dad Soomaali ah oo badan oo la qalday ayaa jiro oo aan macnaha istaahilin inay shabaab galaan, oo dhalinyaro ah oo mustaqbalkoodii uu meesha ku dhumay. marka waa lagu qasban yahay in dadkan la kala saaro. waata kusoo wada macnaha waxaa lagu qasban yahay in shabaab marka ugu dambeyso wadahadal la geliyo. laakiin wadahadalka waa in la gaaray marxalad ay diyaar u yihiin inay wadahadal ku galaan, oo ay noqoto ama qaar isu soo dhiibay, ama noqoto qaar macnaha nabadda raba inay qaataan, ama qaar raba in macnaha cadaaladda la marsiiyo. laakiin hadda sida muuqata macnaha waxay laba awoodoo isgarab socota ayay ahayd. dee labada awoodoodna ayagana waxay aaminsanayeen inay guuleysanayaan oo waddanka ay qabsanayaan. dee xukuumadda iyo dowladda Soomaaliyeed waxay aaminsan tahay inay ayada guuleysanayso oo wada qabanayso. marka wada hadal ma jirin. soo marka hadda marka tallaabada horeysa waxay tahay waa in la wiiqo, ciidan ahaan la wiiqo, oo la gaarsiiyo inay diyaar u yihiin wada hadal, kadibna la kala shaandheeyo. waxay ku xiran tahay marka qofkaasi waxa uu aaminsan yahay. kuwa waxaa jiri doona dabcan macnaha in la dila mooyaane aan wax kale ku qancin oo dee fikrad ahaan diyaar u ah inay u dhintaan, iyo dad badan oo ka mid ah oo u baahan in fursad nololeed la siiyo, mid shaqe la siiyo, la keeno xarumaha dhaqan celinta lagu soo daro bulshada. sababtoo dadkaas waa dadka u baahan. laakiin marxaladaas waxaa la gaari doonaa haddii la yidhahdo marka kambeynka militariga ah uu gaarsiiyo inay u muuqato shabaab inay ku qancaan inaanay guul ayna ku taagnayn, oo ay sidoo hadaatu cabsanaan uu sheegay ay u muuqato inay kala daadasho ay taagan yihiin. soo marka stagekaas la gaaro haddii la yidhahdo markaas ayaa la kala saari doonaa dadkan. cabdisalaan, dhowr jeero horood hadasho waxaa tiri nimankani muddo is uruuriyeen, awood badan ay leeyihiin, dagaal maysan gelin 5-7 sano ugu dambeeyay. hadda maxaa laga ogyahay inay la kulmi doonaan markay dagaalka? dabcan waxaa ula jeedaa al-shabaab. al-shabaab lama teesti gelin awoodooda 5 sano ee ugu dambeysa. waxaanan ognahay inay ciidana diyaarsadeen, dhaqaalana diyaarsadeen, laakiin dagaalka argagixisadu ciddii bulshadu la jirta ayaa awood leh. military mighties ama de machiniska haddii maanta quwadaha ugu awood badan Mareykan weeyaan. waad ogeed Afghanistan waxay ka dhacay, wadka Iraq waxay ka dhacay. ciidan loogama adkaan karo argagixis. argagixis waxaa looga adkaan karaa bulshada oo garabkaada istaagtay. waxaan is leeyahay waa markii ugu horeysay ee bulsho argagixisa ka dhex dhalatay ay si ula kaca oo aan gambasho lahayn ay u soo istaagtay ay tiraadaan bes waay. shabaab maanta waxaan sheegay guuldarrada ugu weyn oo military ma aha. guuldarrada ugu weyn la kulmayaan waxay tahay inay lumiyeen qalbigii iyo kalsoonidii dadka Soomaaliyeed. waana guusha aan u jeedo taas maanta. garanaysa marka ciidanka al-shabaab ay leeyihiin muhiim ah, dhaqaalahoodu muhiim ah. dabcan de way ka dhaqaale badan yihiin waagii hore oo de logistic wixii waa ka bedelay. laakiin aniga waxaan u jeedaa guul darrada al-shabaab meeshan ka arkay waxay tahay qof Soomaali oo maanta ay xoog ku haystaan maana qof ay jacayl ka joogaan inuusan jirin. qof uu arka mujaahidiin inuusan jirin ilaa qof uu arka munaafiqiin iyo maafiya mooyaane. taas ayaana guusha. dowladda Soomaaliyeed waa inay kalsoonidii shacabka haysato. ra-iisul wasaare Xamse Marow hadlayay wuxuu ahaa shacabku ha garab istaageen dowladda. waxaad arkaysaa dadka Soomaalida ku dhahaya Puntland iyo Somaliland ba shacabkoodu waa garab taagan yihiin oo guryahooda cadowg ma deegi karaan, maxay dadka Soomaaliyeed koonfurta u sameeyeen. maanta ayay marka dadkii Soomaali dhiiradeen
waxay laga rabaa dowladda Soomaaliya dhamaystirto dheeridaas oo ay tirada annaga aan ka horeyna annaga xaqiijinayna waana markaan anigu aaminsanahay in sharciyada dadka lagu soo rogo dhaqaalaha bixinaya oo la yiraahdo maxkamad uma tii kartaan dhaqaale ma sii kartaan sababtoo baahidaas uma jirto laakiin tii awood ay soo rogayaan ay awaamirta haystaan waxaan isleeyahay wili farbaa laaban waana wax xagga dowladda ku maqan Almaan Cabdirasaaq markaad fiiriso macawisleyda dood badan ka timid waa la hadal hayaa ma qorshaha jira aad u dejiseen hadda gaartaan deegaanada ku jaantiin ciidamada dowlad hogaaminaysaan ma macawisley baad la macaamili doontaan mase dad shacab oo deegaan oo dhiban oo maaragta dagaal kale yaa deegaanka joogo bismillah horta terminolojiga oo macawisley waxaa waaye bulshada deegaanka waa beeraley waa xoololey waa dadkii dhibaatada ay ku qabatay argagixisada hogaamiyaanay leeyihiin madada yihiin in ay qori qaataanna duruuftaasa ku kaliftay oo ay naftooda difaacaan qofkuna sharciga islaamka iyo kan qaanuunka dalka waa u ogol yihiin in naftiisa uu difaaco mar walbaaba keliya waxay u baahan yihiin in hogaanka loo qabto oo beritooda iyaga dhexdoodana ay dhibaato isgaarsiinin iyaga laftirkoodana argagixisadu intaa kaligood meel ku beelahsato aysan qalanin saa darteeda marka dowladdu ay u sameyneysaa in ciidamadeeda ay ka barbar dagaalamaan macawisleyda ama bulshada deegaankaas degan marka waa dad oo naftaturayaal ah oo deegaankooda iyo dadkooda iyo difaacanaya sharcigana waa u banaynaya dabcan marka ismalihi aniga wax dhibaato ah intii dowladda la joogto ka imaan karta maxaa yeele towjiina ku socota aagga markii la gelinayo askariga soomaaliga ah oo dowladdu dirta sida loo gelinayaa hadhowtiina intii u baahan in ay ciidamada qaranka mid noqdaanna waa la gelinaa kii kalena beertiisa iyo xoolihiisu ku laaban doonaa hubka dhigist ama dhaqan celinta labaduba labada eray oo aada xoogaal ku tahay maxaa laga yeeli doonaa markuu dagaalku soo dhamaado runtii soomaaliya waxay leedahay qorshe la yiraahdo qorshaha qaranka ee dhaqan celinta kaa marka wuxuu ka kooban yahay dhowr marxaladood marka ciidanka militariga ay soo qabtaan qofka shabaab ah waxay ku xiran tahay dabcan marka laga taga xaaladiisa caafimaad manaha qiimeyn ayaa lagu sameynaya oo ah ma qofkan qof khatar ku ah qaranka soomaaliyeed oo manaha ama dembiye waaweyn soo galay haddii uu noocaasi uu yahay dan wuxuu automatically aadaya maxkamad ayuu aadaya laakiin marka la qiimeeya haddii loo dareemo inuu yahay qof la qalday markaas waa marka qofka la keenayo dhaqan celinta la keenayo oo la barayo macnaha xirfad la sameynayo oo taa ka mid ah laakiin arrinta ah hubka dhigista manaha waxyaabaha hadda oo ciladaha hadda ay ka imaanaya ka mid tahay hadda waxaa maqlaysaa in dadka deegaanka in niyada loogu dhisayo la yiraahdo shabaab hubka soo furta taa marka macnaha waxay u baahan tahay tababar ayay u baahan tahay hadda in laga gaarsiiyo oo ah inaan qofkii la dilin haddii shabaabka dhalinyarada ku jirta ay dareemaan in hubka marka laga qaadanayo daraaddeed loo dilaayo qofka waxaa adkaanaysa inuu isdhiibo marka ciidamada dadka deegaanka ah waa in lagu tababaro in la yiraahdo markaad hubka dhigis ku sameynaysaan looma baahno qofkii haddii uu isdhiibaba in aad dishaan oo si aad hub ugu qaadataan waa in aad qofkii ammaan siisaan si dad badan ay u dareemaan haddii ay isdhiibaan inay ammaan helayaan oo ay fursad u heli karaan inay dadka caadiga iyo dowladnimadii iyo noloshii laga qalday inay kusoo laabtaan marka dadaallo dhinacyo badan ayaa socda oo dee deg deg ah duruufta sida la sheegay macnaha waa maana u diyaarsanayn xukuumadda qorshihii la rabay maanay dhamaystirnayn laakiin hawsha hadda socoto waay marka dadaaladaas ayaa hadda jira hay-adda sirdoonku dabcan xog iyo in la helo muqaabaraad door intee lay qaadan kartaa dabcan dagaalka militariga wado dadka deegaanka wado sirdoonkaad kasoo shaqaysay maxay ka qaadan kartaa cabdiqaadiro waqtigan hadda waxaan isleeyahay waxaa la gaaray waqtigii intelligenciga loo baahnay waqtigii nabad sugiddu ay ahayd ama nabad sugid ha noqoto ama militariga ha noqoto laakiin waqtigii xogta loo baahnay weeyaan waqtiga lala soco lahaa dhaqdhaqaaqa al-shabaab intaysan imaanin meesha ay weerar kusoo yihiin awoodooda meesha ay saarayaan hubka nuuca ay wataan madaxdooda meesha ay joogto haddii ay meelaha qaarkood dib u gurasho ka samaynayaan waqtigan waa waqtiga loogu baahi badan yahay intelligenciga waana waxaan maanta isleeyahay hay-adda nabad sugidda in ay saddex jibaarto dadaalkeedii haddii dhaqaale ka dhimanayo in la siiyo haddii aqoon ka dhiman in lagu kordhiyo haddii xoog ka dhiman in lagu kordhiyo militarigu sidoo kale intelligence uu leeyahy in la sameeyo hadday samaysan tahane runtii laga shaqaysiiyo xarumo laisku dhaafsanayo xogta
iyo maaragtay iyo wada shaqaynta laysku dhaafsanayo oo ciidamada amisom iyo ciidamada militariga soomaaliya iyo wadamada kale ee soomaaliya dariska maanta ama la shaqaynaya in xogta al-shabaab maanta aada baahi loo qabaa. haddii taas marka lagaha qabtiro dadka militariga iyo daroontan iyo qabaa'ilada is-abaabulay, waxaan isleeyahay guul weyn ay ka gaari doonaan al-shabaab, waana fursadeedii maanta soomaaliya kusoo bandhigi laha awoodeeda sirdoonka maanta. ugu dambeyn xildhibaane, maxaa kusoo gabagabayn lahayd barnaamijkeena? waxaan kusoo gabagabeynayaa in dhammaan bulshada soomaaliyeed ay gacnaha isqabsadaan, dowladooda garab istaagaan, bulshada is-abaabushay ee dhibaatada ka kacdoomay argagixisada in la taakuleeyo. cid walba ciddii heli kartaa dhaqaale, ciddii heli kartaa raashin, ciddii daawo heli kartaa inay tagaan goobaha dagaalka. sidoo kaleete dhaqaatiirta waa waxa ugu muhiimsan. dhalinyarada dhaqaatiirta hadda soo baxay, kuwii hore, dhammaan in laysugu tago aagga, gabdhuhu ay biyaha ka daba qaadaan, dhalinyaradu ay is-abaabusho, intaba loona guntado in nimankaas cadowga ah la yska wada qaado, oo aan dowlad loogu simin, oo deegaan keligiis aan loogu simin sida hadda kahor dhici jirto kaleete, oo deegaanada kaleeto dhan oo deegaankii la dagaalaanba deegaanka dariska la ah uu ka kaalmeeyo. waxaa dhacday reer bacadweyne waa lagu fiirsaday, way baabi'iyeen. waxaa lagu fiirsaday reer wasil, maanta seefta waxay dul saaran tahay reer baxdo iyo reer hiiraan. marka maalin walba haddii oo mid loo qasho, waxaan naqanaynaa 3 dibi, mid walbaba libaaxa si gooni ah keligiis uu cunay. marka gacnaha isqabsano. cadowgu maanta waa taag daran yahay, waa dhaqaalo daran yahay, waa marin habaabay, beentiisiina bannaankay usoo baxday. marka si wada jira heeryadaasina isaga wada qaadno. dowladuna si gaar ah waxaan ugu baaqaynaa in aysan ceermelin arrintaa, jaaniska maanta taaganna laga faa'iideeyo oo nimankaas cadowga ah si wanaagsan cashar loogu dhigo. runtii waxaan qabaa in qolo walba door gooni ah ayay leeyihiin. aniga waxaan horta aada ugu soo celcelina u ammaanayaa doorka ay xukuumadda ka qaatay. dabcan wuxuu u baahan yahay sida uu xildhibaanka sheegay in la xoojiyo, la dhammaystiro oo aan arrintaa loo kala harin. bulshada deegaanada kala duwanna in aan dhammaanteen ka wada qayb qaadan waa arrin laga maarmaan ah. laakiin doorka aan weli dareemayo in aada u baahan in culayska loo saaro waxay tahay baarlamaanka inuu ku dadaalo iyo xukuumadda inay ku dadaalaan inay shuruucda sameeyaan, shuruucda dhiman. sababtoo ah suuragal ma ah in wadankan 15 sano la yirahdo sharciga argixisada weli ma lihin, laakiin haddana waxaa la dagaalamayna argixiso. maxaa hortaagan sharcigaas? dhowr jeeraa baarlamaanka la keenay, 2007 keliya ma aha. sidoo kaleete baarlamaankii oo 9aad inuu yahan umalaynaa, isagana waa la keenay. saasoo kaleeto wuu mari waayey. dalkan waxaan ognahay inuu dowlad rabo, laakiin duul qarsoonaa diidan. duulkaas qarsan soomaaliya ka mid ah, ajaanibaa ka mid ah, laakiin insha allah yaa diidan in la meel mariyo. baarlamaanka maanta jira wuu meel marin doonaa biidni illahi alkariim. anagu kanaan ku jirnaa, kuwii hore kuma jirin. marka waa la meel marinayaa. wallaahi cid hadda kooni loo tilmaami kaloo diidan ma naqaano, way midabo badan yihiin. marka midabo badantaas daahan waa laga rogaa, waana la marsiinaa insha allah. maya waxaan u malaynaa xildhibaanka inuu ka xishoonayo waxa meesha uu mari waayo siduu sheegay waa baarlamaankana dee cidda cod kule waa naqaana waa xildhibaanada. marka in 15 sano la yirahdo dadka soomaaliyeed sharci ma lihin argagixiso, haddana waxaan la dagaalamayna argagixiso, wax la aqbali kara maaha. laakiinse waxaan laga maarmeyn sharcigaas oo aan looga maarmeyn kuwa hadayti aan sheego ahayd kii booliska, kii nabad sugidda in dib u eegis lagu sameeyo xeerka ciqaabta soomaaliyeed. sababtoo ah dowladnimada waxay ku jirtaa sharciga ku jirtaa. annaga waxaan shabaab kaga duwannaha waxay tahay sharciga ayaan kaga duwannahay, taa waayo. marka laakiin haddaan dhahno sharciga ma samaynayno oo xabad keliya aan kula dagaalamaynaa, nooma suuroogeyso. sidoo kale wacyigelinta ayadana laftigeeda macnaha waa door muhiim ah. sababtoo waxa ay dadka ku beer la xusan jira macnaha waxay tahay inay dadka qaldaan. marka inaan wacyigelinta uma baahna sida dhaqaalaha militariga oo kale, dhaqaale ka yara u baahan tahay. macnaha kulligeen marka inaan u istaagno wacyigelinta, ama ha noqoto mid qoyseed, ama mid qofeed ha noqoto, ama mid qabiileed ha noqoto, ama mid qaran ha noqoto, inaan doorkeena aan ka wada qaadano. waxaan isleeyahay ayadana waa muhiim. sidoo kale diblomaasiyadda, maanaa mar kasta oo arrimaha soomaaliya ay dagaalada noocan ay jiraan, soomaaliya maaha wadan jasiirad ku yaal maaha. wadamada dariska macnaha saameyn ayay kuleeyihiin, wadamada ciidamada ay ka joogaan saameyn ayay kuleeyihin, wadamo kaleo naga fogfog laftigooda saameyn ayay kuleeyihin. ayaga laftigooda in kambeynka diblomaasiyadda ah lasii dardargeliyo. si sababtoo ah nimanka la yirahdo shabaab waxay 2012 ay heshiis la galeen alqaacida oo macnaha ah
inay yihiin urur caalami ah inay yihiin. marka haddii urur caalami hadday yihiin waa loo ololbadsadaa oo caalamka o dhan ayaa si ay dagaalkan mid loo dhan yahay looga wada mid noqdo in laga shaqeeyo. aniga waxaan kusoo koobin lahay horta number one in xildhibaanada la yidhahdo goboladiina aada oo qabiilkiina kiciya oo garab istaago kalsooni siiya, taas waan qabaa. number two, mas-uuliyiinta dowladda ee ugu sarsaraysa oo hay-adaha amniga ku jiraanna in ay isu qaybiyaan wadanka si ay communitiga iyo deegaanada u garab istaagaan. maamul goboleedyada soomaaliya in laga arko dagaalka inay daacad ka yihiin, sida hirshabeelle iyo galmudug iyo koonfur galbeed. jubbaland waa budagaar u tuman, puntland waa budagaar u tuman, laakiin nimanka cadowga oo jubbaland waa la haystaa. laakiin waxaan isleeyahay dhaqaaqa iyo dagaalku meeshu hadda ka socdo waa dhinacaan, marka abaartu dhinacay ku habsateen dhinacaan u badanta. marka waxaan isleeyahay awoodda maamul goboleedyada ilaa hadda ma aragno. haddii nimankii madaxweynayaashii hore ay si kale hor ugu laabantaha ma ogi, laakiin haddana waxaan ka rabaa aniga dowladda xasan sheekh maxamuud iyo maamul goboleedyadiiyo si wada jira qabiilka Soomaaliya u garab istaagan oo ciidamadoodii iyo sirdoonkoodii iyo qabiiladoodii garab taagan u baahna. haddii shabaab aan si wada jira loola dagaalamin, shabaab dadka way ku dhex noolaa doonaan, meelo badan ay ku badbaadaan way heli doonaan.